halkan waa janalka Rafiiq Al-Macruuf. Subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan soo gelino. Taaba calaamadda gambaleelka si aad u ogaato. Hubkan ugu weyn ee loolanka aan uga soo horjeedno midab kala sooca dhibaatada iyo cadaalad darrada ayaa waxa ay tahay in aan shacabkeena iskugu xidhno ololo ballaaran oo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ah. Nelson Mandela waxa uu ahaa nin cod kara, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Midowga ee South Africa ay yeelato. waxaa la dhihi jiray Rolihlahla Mandela, waxaana dhashay 18 July sanadkii 1918 ee gobolka Mvezo. Rolihlahla wuxuu ka soo jeeday qoys aad u ballaaran. Aabihiisna waxa uu u shaqayn jiray boqorkii South Africa xukumi jiray. Markii uu soo gaaray da'da waxbarashada, hooyadiis ayaa waxay ka soo diiwaangelisay iskuul Methodist la dhihi jiray isagoo loo qoray magaca Nelson. muddo dheer kadib waxa uu yeeshay awood hogaamineed iyo mid saameyneed, wuxuuna noqday siyaasiyiinta Afrikaanka ee ugu caansan ee dunida laga xusuusto. Markii uu dhameeyay waxbarashada dugsiga sare, Nelson waxa uu iska diiwaangeliyay jaamacadda Johannesburg isagoona ka bartay faculty-ga qaanuunka. Intii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu la kulmay faquuqa dhanka midabka, wuxuuna ahaa qofka kaliya ee madow ee jaamacadda dhiganayay. sanadkii 1944 Nelson Mandela waxa uu ku biiray xisbigii African National Congress ee ANC, wuxuuna ahaa xisbiga kaliya ee jiro oo ka hoos shaqeynay gumaysiga midab kala sooca ee haystay South Africa. wuxuuna ahaa xisbiga kaliya ee dadka midowga South Afrikaanka ay lahaayeen. sanadkii 1948 South Africa waxa ka dhacay doorasho, waxaana ku guuleystay National Party xisbiga la yiraahdo, waxaana South Africa ka soo ifbaxay midab kala sooca ee caddan iyo midowga u dhaxeeyo. waxayna ansixisay dawladda xilligaas in dadka caddaanka ee tirada yar ay ka sareeyaan midowga dalka iskale. sanadkii 1952 ANC iyo Nelson Mandela waxay diideen shuruuc dawladda ka soo baxday oo ah inaysan xisbiyada midoobi karin. ANC waxay la midowday xisbi la oran jiray United Party iyo xisbi kale oo la dhihi jiray Indian. xisbiga National Party ee talada hay waxa uu bilaabay in uu kala buriyo taageerayaasha uuna caburiyo xisbiyada. sidoo kale waxa uu Nelson Mandela ka mamnuucay kamid ahaanshaha xisbiga ANC. December sanadkii 1956 Nelson Mandela iyo 150 kale waxa lagu soo eedeeyay inay afgambi dalka ka damacsan yihiin. wixii intaas ka dambeeyay Nelson Mandela waxa uu bilaabay inuu u dhaqdhaqaaqo midab kala sooca iyo wadan gumaystaha. sanadkii 1961 mar kale Nelson Mandela waxa lagu soo eedeeyay inuu damacsan yahay afgambi dalka ka dhacay qalalaase, isagoo soo hubiyay maleeshiyad. dawladana waxay amar ku bixisay soo qabashadiisa. Agosto sanadkii 1962 Mandela waa la soo qabtay, waxaana la geeyay maxkamad. waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. markii la xiray Nelson Mandela waxa istaagi waayay banaanbaxyada kuwaas oo lagu taageerayo Nelson Mandela. ugu dambeyntii dawladda South Africa waxay ku qasbanaatay in Nelson Mandela xabsiga ay ka sii deyso. 27 sano kadib sanadkii 1990 Nelson Mandela waxa laga sii daayay xabsiga. sanadkii 1994 waxa South Africa ka dhacay doorashadii ugu horeysay, waxaana ku guuleystay xisbiga ANC uu hogaaminayay Nelson Mandela. Nelson Mandela waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ee South Africa ay yeelato, wuxuuna ballan qaaday in uu wax weyn ka qaban doono waxbarashada iyo dhismaha dalka. sidoo kale Nelson Mandela waxa uu dhisay guddiga dib u heshiisiinta kaasoo looga gol lahaa si loo ilaaliyo xuquuqa ka dhex jiro dadka South Afrikaanka ee caddan iyo midowga iskugu jiro. sanadkii 1999 Mandela waxa uu howlgab ka noqday dhanka siyaasadda. ugu dambeyntii 2013 waxaa geeriyooday Nelson Mandela isagoo jira da'da 95, wuxuuna u geeriyooday cudur dhanka neefsiga ah. waxa uu kaalin dahab ka galay taariikhda dunida, wuxuuna noqday aabihii ugu horreeyay South Africa. dhammaan South Afrikaanka inay qadariyaan.